Hooyooyin badan ayaa xilliga uurka isku arka barar lugaha ah. Haddaba maxaa sababa? Ma tahay xaalad normal ah? Maxaase u daawo ah? Asalaamu calaykum. Asxaabtayda ku soo dhawaada YouTube channel-keena. Waa walaashin Raxma Diamond. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar channel-ka. Bararka lugaha waa xaalad ay inta badan hooyooyinka ay isku arkaan xilliga uurka, gaar ahaan bilaha dambe. Hooyooyin badan ayaa ka walwala waxa uu keenay bararka lugaha iyo cirbaha, balse waa xaalad caadi ah oo normal ah oo boqolkiiba 60 hooyooyinka uurka leh ay isku arkaan. Xaaladan waxaa keena dhowr arrin oo kala ah in miisaanka uurjiifka uu sii kordhay marba marka ka dambeyso. Miisaankaas culeyska ayaa cadaadis saaraya qeybaha dambe ee jirka, taas ayaa keenaysa in uu bararo lugaha. Xaaladda labaad oo keeni karta in ay lugaha bararaan ayaa ah jirka oo soo daaya fluid badan. Sidoo kale waxyaabaha keena bararka waxaa ka mid ah isbedelka ku imaaday hooyada jirkeeda, waayo markay hooyada uurka leedahay waxaa la soo deynayaa hormoono badan kuwaas oo caawinaya uurjiifka korinshihiisa, taasna saameyn ayay ku yeelanaysaa. Balse haddii hooyada ay aragto in gacmaha iyo wejiga ay la socdaan oo aysan lugaha kaliya ahayn, waa xaalad kale oo u baahan in hooyada ay sameyso baaritaan dheeraad ah, sida inay cabirto cadaadiska dhiigga oo ay la xiriirto dhakhtar. Waayo calaamada ah in wejiga iyo gacmaha ay bararsan yihiin iyo lugaha waa xaalad tilmaamaysa dhiig karka uurka oo loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsia waa dhiig karka ku dhaca hooyooyinka xilliga uurka, waxaana calaamadihiisa ka mid ah hooyada inay aragto wejiga, gacmaha iyo lugaha oo wada socda oo bararan, sidoo kale cadaadiska dhiigga inuu normalkii uu ka sare maro. Haddaba maxaa xal u ah ama u daawo ah? Number 1, hooyada gebi ahaanba intay uurka leedahay waxaa wanaagsan inay iska yareyso cusbada ama milixda, waayo uma wanaagsana. Sidoo kale hooyada waa inay isticmaasho aysan wax badan taagnaanin ama fadhiga aysan badsanin, waayo markasta oo hooyada ay wax badan taagnaato waxaa imaanaya barar oo lugaha ah. Hooyada markii ay fadhiso ama ay jiifto waa inay lugaha ay saarto meel yara sareyso si jirkeeda uu balance u noqdo uu u sinaado. Ugu dambeyn, bararka lugaha kaliya ah waa xaalad normal ah oo hooyooyin badan lagu arko xilliga uurka. Waxba ha ka walwalin, balse haddii uu noqdo mid ziyaado ah ama zaa'id ah, la xiriir dhakhtarkaaga si uu kugula taliyo ka baaritaan uu kugu sameeyo. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawaaw oo nagu soo biir. Mahadsanid.